wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin haayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo guulo siyaasadeed ka gaaray bilihii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble haddaba maxay yihiin guulaha siyaasadeed oo madaxweyne Farmaajo uu guuleystay ra'iisul wasaare Roble sidoo kale maxaa ka jira in awood loo sheegtay Roble sidoo kale lagala wareegay wasaaradihii ugu badnaa halkee ayuu xaal maraya qodobadeena ayaan si toos ah ugu faahfaahin doonaa wararka kale oo xasaasiga ah aan ku soo qaadan doono barnaamijyadeena waxaa kamid ah kursiga hoob 147 oo xiisadiisu ay meel sare gaartay iyadoo loolanka ka jira magaalada Dhuusamareebna uu saameyn ku yeeshay gobolka Banaadir haddaba maxay tahay saameyntaasi khilaafka xoogan ee soo kala dhaxgalay علي يرى علي يسيدو كلام مدحوينها مامور كجلمودك أيام قضبضنا كفاقي دونا إذا نصيدو كلا قرقر وقرك وسارين هاي إنه كلا دورتو مدحوين فرماجو يمها الثرات أو سيد الشيء هدو أو ربحنا ضو حق لنا يان dhanka kale xalkii ay marayaan doorashooyinka gobolada Gedo iyo sidoo kale Bari saameyn xoogan oo aan la filayn oo madaxweyne Farmaajo ku yeeshay doorashooyinka dhawaan la filayo inay ka dhacaan gobolka Bari gaar ahaan magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso maxay tahay saameyntaasi maxaa u suurageliyay in Puntland oo loo yahay sida ay madaxweyne Farmaajo ula dagaashay inuu saameyn inta la ku yeesho sidoo kalena loo ballan qaado xildhibaanadii ugu badnaa inay ka soo baxaan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland warbixinadeena ayaan si toos ah ugu qaada dhigi doona qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan waan idin haynaa oo ay ka mid yihiin ciidamo cusub oo maanta tababar loogu qaaday dalka Russia kuwaasi oo dawladdu ku warbixisay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa loo tababarayo ciidanka cirka iyo kuwa badda kuwaasi oo ka buuxaan ama ay ku jiraan saraakiil tababaro gooni ah oo dhowr sano qaadanayo la siinayo qodobada ay kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawada ay tahay markuu soo booqato channelkeena subscribe oo furgan balaalka si aad u daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay madaxweyne Farmaajo ayaa guulo siyaasadeed ka gaaray ra'iisul wasaare Roble isagoona howlihiisa iyo xilka uu haya ka dhigay wax kama jiraan kadib markii duulaano siyaasadeed oo madaxweyne Farmaajo ku qaaday Roble uu uga guuleystay in ugu dambeysay in Cali Guudlaawo oo in muddo ah ku guuldareystay inuu gaaro magaalada Beledweyne uu si awood ah ku geeyo sidoo kalena shacabku soo dhaweeyaan Roble ayaa hadda isku dayaya inuu dhinaca ahlusunno uga faa'iideysto dagaalka uu kula jiro madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor balse arinta waxaa beeniyay amar burburiyay qorshaha madaxweyne Farmaajo uu ku ugaarsanayo siyaasiyiinta hubeysan ee ka aragtida duwan kaas oo hadda ahlusunno ugu dambeysay gacanta ugu soo dhacday iyadoo warbixinadu sheegayaan in kulan wada hadal dhawaan ay furanayaan filla Soomaaliya iyo hogaamiyaasha ugu sareeya ahlusunno waa Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud ra'iisul wasaare Roble waxay ahayd wadada kaliya oo furnayd inuu ku duulo maadaama urur hubeysan ay ka jiraan ahlusunna wal jamaa oo bilii u dambeeyay dagaal faraha loo gubto ku dhaxmaray deegaanada Galmudug dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug haddaba halkee ay hadda marayaan wada hadallada u dhaxeeya Sheekh Shaakir iyo filla Soomaaliya wararka qaar ayaana sheegaya in Macalin Maxamuud oo ku sugan hadda magaalada Nairobi uu dhawaan u soo kicin doono magaalada Muqdisho si uu kulan ula yeesho madaxweyne Farmaajo way warbixinada markii hore ay sheegayeen ra'iisul wasaare Roble uu isku dayay inuu hormaro madaxweyne Farmaajo balse uu dambeyn arintaasi ay suuragali weysay sababtoo Macalin Maxamuud u diiday kulanka Roble ayaa lagu sheegay inuu dhabarjabis siyaasadeed ku sameeyay dagaalkii ahlusunno la gashay maamulka Galmudug kadib markii uu ku dhawaaqay ama qoraal uu soo saaray uu si toos ah ugu taageeray maamulka Galmudug balse xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee ka gaabsatay horena ay aad isku dhawaayeen madaxweyne Farmaajo iyo Macalin Maxamuud inta uusan madaxweyne Farmaajo qaban hoggaanka ugu sareeya dalka Roble ayaa hadda wajahaya fadeexooyin aad u sareeya iyo sidoo kale tayaxumo siyaasadeed oo ku dhacday dhawaanahan walow hadda uu door bidayo in dagaalka madaxweyne Farmaajo uu kula jiro oo uu adeegsado dawladaha shisheeye ay ka mid yihiin Imaaraadka Kenya Bahrain Oman iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya haddaba muxuu kala soo kulmay safarkii Roble uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta maxaa ka jira warbixinada sheegaya inuu lacago fara badan ka soo qaatay dalalkaas si dagaal siyaasadeed ugu qaado warbixino kale oo aan helaynana waxay sheegayaan in ra'iisul wasaare Roble uu dhawaanaan ku dhawaaqi doono in la furay qaadkii laga soo dejin jiray ama laga keeni jiray dalka Kenya oo aan dariska oo sanado ka hor madaxweyne Farmaajo joojiyay arintaas oo ka dhalatay buuq siyaasadeed ka hor inta aan lagu dhawaaqin
kiiska badda ee u dhaxeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan ka dhul sugaynaa tallaabada Roble uu qaadi doono isagoo ka duulaya khidada ay u jeexeen dalalka Carabeed, Djibouti iyo Kenya. dhanka kale kursiga nambarkiisu yahay hob 447 ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay ee loolanka kuraasta golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta u hanqaltaagaya kursigaasi ay hub iyo ciidan ka dejinayaan deegaanada Galmudug sida magaalooyinka Guraceel iyo Dhuusamareeb. Cali Yare iyo sidoo kale Mahad Salaad oo ku loolamaya iyo siyaasiyiin malxiisa ah oo sida la sheegay ay wataan. maxaase ka jira in qoorqoor uu taageero dhab ah siinayo Mahad Maxamed Salaad? maxayse tahay sababtu? Villa Soomaaliya ayaa la sheegay in qoorqoor looga wacay kadib markii Cali Yare uu ka gudbiyay ribood ah inuu si toos ah u taageerayo kursigaana siinayo Mahad Salaad. saameynta ay Villa Soomaaliya ku yeelan karta ayaana la sheegay inay lumi doonaan saaxiibkoodii siyaasadeed oo xilli adag soo garab istaagay madaxweyne Farmaajo, sidoo kalena mar kale ay luminayaan cod muhiim u ahaa iyo shakhsi la hubo haddii uu xildhibaankaasi helo in madaxweyne Farmaajo uu xildhibaano badan u xodxodan doono. sidoo kale Mahad Salaad haddii uu soo laabto waxay dhabarjab siyaasadeed ku tahay madaxweyne Farmaajo oo cod lumiyay shakhsi muhiim u ahaa meesha ka waayay soona saaray xildhibaankii ugu saameynta badnaa mucaaradka, kaas oo looba haddii uu soo laabto inuu laf dhuun gasho ku noqon doono madaxweyne Farmaajo. yeeritaanka loo yeeray madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa laga yaabaa in Cali Yare uu kursigaasi ku helo, sidoo kalena Mahad Salaad uu wadada ku qulqulo maadaama 8 sano uu ku soo fadhiyo kursigaasi. dhanka kale warar ayaa sheegaya in beesha kursiga iska leh ay diidan tahay Mahad Salaad oo sidoo kale doonayso Cali Yare maadaama aysan ku qanacsanayn qaabka uu Mahad Salaad wax u wado. 8 sano uu kursigan u soo daadinayay dhig. haddaba ciidamada iyo hubka laga dejiyay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel ayaa la sheegayaa in kursigaasi uu sababi karo in magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi dagaal ka qarxo, waa haddii inta aysan doorashadu dhicin labada siyaasi aan la kala tuurin. qodobka kale ee warkeena ugu muhiimsan ayaa ah in ciidamadii ugu badnaa loo qaada dalka Ruushia 30 sano kadib. waa markii ugu horeysay oo ciidan noocan oo kala ah dalka dibadiisa loo qaado, gaar ahaan dalka Ruushia. waxayna u badan yihiin ciidamadani saraakiil tababaro gooniya loo soo siin doono ciidanka cirka iyo kuwa badda. taliyaha ciidanka badda Dablabaylood ayaana ciidankan ku sagootiyay airportka Aadan Cadde International Airport, isagoona sidoo kale dhiirigelin iyo hambalyo isugu diray. qaar ka mid ah ciidamadani ayaa la sheegay inay 4 sano kulliyad waxbarasho ku maqnaan doonaan, halka inta kale ay sanad iyo bar iyo 2 sano ay ku maqnaan doonaan safarka ay uga maqan yihiin dalka dibadiisa si ay u soo laabtaan iyagoo ah saraakiil u diyaarsan inay ka difaacaan dalka cirka iyo badda intaba. madaxweyne Farmaajo ayaa markan isku dayaya in 4 sano ay soo socotaa haddii uu soo laabtay haddii kaleba uu soo saaro ciidan bad iyo cir oo lagu xasuusan doono dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana la sheegayaa ciidankan inay gaari doonaan bari magaalada Moscow ee caasimadda dalkaasi, iyadoona si toos ah loogu soo dhaweyn doono loona galbi doono xeryaha tababarka ciidamadan loo wado. dabaalka waxaa inooga wararkeennii habeenimo falan daawada haddii ay tahay markii koowaad soo booqato janaalkeena subscribe dhaw faragan barnaamijka si aad u noqdo daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.